السلام عليكم أصحابتي كسو دوادا يوتيوب channel ka Ismail Abdulle أنت waxaan idin soo gudbinayaa warbixin culus oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed amni iyo doorasho ee Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland arrimaha socda maanta maaha kuwa fudud waa kuwa go'aamin kara mustaqbalka siyaasadeed ee dalka awood qaybsiga iyo jihada dawladnimada Soomaaliya su'aasha ugu weyn ee taagan waa yaa gacanta sare yeelan doona dawladda federaalka mise maamul goboleedyada qaarkood sida Jubbaland wararka ka imaanaya Baydhabo waxay sheegayaan in kulamo siyaasadeed oo aad u culus ay socdaan madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shirar amni ah gudoominaya guddiga doorashooyinka ay shaaciyeen jadwal rasmi ah laakiin su'aasha jirta jadwalkan doorasho ma yahay mid dhab ah mise waa mid siyaasad lagu xoojinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa la sheegay inuu ku jiro kala xulashada saaxiibadiisa siyaasadeed cadaadis kaga imaanaya gudaha iyo dibadda arrintan waxay muujinaysaa in siyaasadda Koonfur Galbeed aysan deganayn balse ay ku jirto marxalad go'aan adag waxaa la xaqiijiyay afarta taliye ee ciidanka qalabka sida inay ku sugan yihiin Baydhabo wasiirka difaaca uu booqday xero ay joogaan ciidamada Itoobiyaanka ah wada shaqayn military oo la xoojinayo dhanka kala duqeyn ka dhacday inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Daynuunay waxa lagu dilay 12 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab tani waxay cadeynaysaa in dawladda ay si xoog leh u wado dagaalka in Baydhabo ay noqotay xarunta muhiimka ah ee military laakiin su'aal kale ayaa taagan dhaqdhaqaaqa military ma yahay mid amni oo kaliya mise sidoo kale waa mid siyaasad lagu hago mucaaradka dawladda federaalka dalka way ka maqan yihiin inta badan dhaqaale la'aan ayaa haysata ma jiraan awaabul muuqda waxa ugu badan ay ku celcelinayaan waa 15 May laakiin maxay ka dhigan tahay taariikhdaas waxa la rumaysan yahay in ay tahay maalinta ay mucaaradku qorsheenayaan inay is awaabulaan ama ay isku dayaan inay cadaadis siyaasadeed saaraan dawladda laakiin xaqiiqdu waa mucaaradku waa kala qaybsan yihiin ma haystaan awood ay si toos ah wax ugu bedelaan halka ugu kulul maanta waa Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado waxa socda laba qorshe oo isbarbar socda qorshe military dawladda federaalka waxay ciidamo daadgareynaysaa Gado ujeedadu waa in la wiiqo saameynta Axmed Madoobe sanduuqyada doorashada ayaa la geeyay Gado waxa la bilaabay diiwaangelinta waxa la doonayaa doorasho qof iyo cod ah tani waa istiraatiijiyad aad u culus xabad iyo cod labada waa la isticmaalayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay haysataa ciidamo badan taageero caalami ah iyo qorshe doorasho Axmed Madoobe wuxuu leeyahay khibrad siyaasadeed taageero gudaha Jubbaland ah xiriiro dibadeed laakiin caqabada ugu weyn ee Axmed Madoobe waa cadaadis military go'doon siyaasadeed halka dawladda federaalka ay halis ugu jirto in dagaal furan uu qorxo waxa la yiri Soomaalidu bishii hijriyada waxay xisaabinayaan kaliya Ramadaanka maanta dad badan ma oga taariikhda saxda ah ee hijriyada tani waxay muujinaysaa kala fogaanshaha dhaqan iyo diin in bulshada lagu mashquuliyay siyaasad oo kaliya xaaladda maanta Soomaaliya waxay maraysaa marxalad adag isku dhaf dagaal doorasho iyo siyaasado isdiidan su'aalaha ugu muhiimsan doorasho qof iyo cod ah meher gali doonta dagaal siyaasadeed masuur rogi doona mise mid military yaa guulaysan doona dawladda federaalka mise Axmed Madoobe jawaabta dhabta ah waxay ku xirnaan doontaa midnimada siyaasiyiinta go'aamada militariga iyo taageerada shacabka adiguna fikirkaaga la wadaag yaa adkaan doona ma taageersan tahay doorashada qof iyo cod ah mucaaradku misbaa waa wuli karaan arinta taagan ayaa waxay tahay doorasho noocay ayaa ka dhacaysa Koonfur Galbeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay hadaladan Koonfur Galbeed meesha ugu horreysay doorashada ka dhacday naqanay ilaahay idinkiis mid fiican oo qurux badan oo tii Muqdisho aad ku arkayseen oo kala ah ka dhacayso oo ammaan leh oo nabad leh oo qajajicis iyo hiritaal iyo qashqashaad iyo cabsi aan lahayn agaasimaha hay'adda nisamaha salaad ayaa gaaray Baydhabo oo amnigeeda aad loo dejin rabo أنا عيدة أنا حب كذا لينا أنا عيدة أنا أقول حب كذا لينا ركينا عيال لمدينا فراري يا بنت فاعينا ركينا عيال لمدينا فراري يا بنت فاعينا يا ديقا نورينا أنا عيدة أنا
dhalaanay